maanta videogeena wuxuu ku saabsan yahay gabadha la yiraahdo maslaxo xaaska Catoosh Yare waana dareemi kartiin videoga aan soo wado waa video baraha bulshada qabsaday shalay ilaa iyo maanta runtii gabadhii oo calaacalaysa ayaa barta Facebook la soo dhigay oo Facebook soo fariisatay si toos iyadoo waliba qof ka maqneen familkeeda qof ugu qaalisanaa hooyo macaan iyadoo wadato فيديو waxay soo duubtay caloosha markaas iyada ah ku gilgilayso calooshaada beerkaaga banaanka soo dhigay laakiin aniga waan ka duwanahay nin walba waxbuu meel ka arkaa aniga waan ka duwanahay ra'yiga gabadhaas ay wadato waxaan leeyahay intaanan aan gudo galin ama idin soo deynin maxaa la yiraahdaa videoga aan idin hayo gabaray wax walba kugu dhacay waa waxaad adigu is yeeshay wax walba kugu dhacayna waa wax uu ku yeelay ninka maanta ku damaanad qaaday saddexda kugu qabo oo maxaa la yiraahdaa maalinta aakhira adduunka aakhirana wax laga weydiin doono mas'uuliyadaada ninkaas ay dusha ka koraysaa waxbana xaganin ninka aad iskugu timaadeen briiska ee la yiraahdo Xasan Toob waxba xaganin hadalladaada waxa kamid ahaa wax walba laga sameystay taasna adiga ay ceeb ku tahay familkaaga ceeb u tahay qabiiladaada ceeb u tahay Soomaali weyn ay ceeb u tahay inaad banaanka la soo istaagtid wax walba laga sameey wax walba oo sameey la yiri ayaan sameeyay hadalkaas waa dareemi kartiin oo malaynaa waxa ku jiro ama ku daahsan ama ku hoos duuban waxyaalo badan inay jiraan marka yaan idinkaga hor dhicin bal ila dhageysta hadalladeeda wixii commentina fikradiina nagula wadaaga qaybta hoose haddii aad nagu cusub tahayna subscribe-ka noo saar haddii aad naga daawanayso YouTube-ka aan ku leenahay Baabul Faa'iziin page-kanagana waa Baabul Faa'iziin sidoo kale Facebook-ga balse marka hore la daawo bal videogan aynoo soo diyaariyay ani midaas uu dhacday markii Nairobi aaday anoo dabaalnay markasta Xasan Toob oo inuu dabaaliga duuba warka uu dhagay Xasan Toob iga naafa dhahay hoodiida shaqada ka mid tahay oo dhahay hooyadii oo soo wacay gabadhaada inay shaqaysto way diidan tahay oo dhahay السلام عليكم سماعون محمد مال بأجوكي واني سلامي هل كان معلومات وقري وي كنوش هاي محلاي وحان جعل استحالة جرتو أنا يصوبا إيسا قرب إيسيسين شقد هاي وحان قطي شقا إسكحن أو اسكوتا ليساناي وبيحي لربو سمال وهاي دادي ديدنا أو هاي شقا واي شقا كميتا دا قبلينين go out ما شقا كميتا ما شقا سو حدود مالها soo xaduud malaha soo waxaad ilaahay kaga baqaysid malaha soo malahan markaas iyada meel aad ku heshiiseen ittifaaq ama markaas iyada waxyaalo idin kala reebay waxaan hadda sameyn waysid wax adiga ku dhibaayo oo sharaftaada dhibaayo oo diintaada dhib ku ah oo akhlaaqdaada dhib ku ah oo bashariyadaada bini'aadanimadaada dhib ku ah haddii samee lagu dhaho shaqaday ka mid tahay macquul maaha abay adiga waxaan dhan u diyaar garowday waxaan dhan adiga markaas iyada ah waana arki doontiin markaas iyada ah xog kaleeta ayaa ka dambaysa videogan oo naga qarsan wax walba soo baxana except hore ha ka dhihina maxaa yeelay waxa jiro basharka waxyaalo asaga kayd u qarsan oo bashariyada kale uusan la wadaagaynin wax walba sameey la yiri waxas been waay wax walba ayada qiyaarkeeda ku sameysay waxay rabtaa dadka inay ana Xasan Toosh uma lihiin markaas iyada aqoon dheeraad difaacna igama aha gabadhan walaasheeda oo Soomaaliyeed inaan ceebas diyaarmi laakiin xaqiiqdan sheega bilow ila dhamaad waa waxay iyada u bareertay waa wuxuu ninkeeda u bareeray in jirkeeda sawir laga soo qaado oo ninkeeda iyo nin kale ay la qabiisato maxaa keenay aaw diintii aaw akhlaaqdii aaw akhlaaqiyadka aaw alla ka cabsiga aaw xaguu aaday waa waxay u bareertay gabadhan Soomaaliyeed waa waxay u bareeray ninkeeda mas'uulka ah wali waxaan qabaa in la xiro hadii xarig loo heli karo ninka la yiraahdo Catoosh Yare bal ku socdo hayo ani midaas uu dhacday markii Nairobi aaday anoo dabaalnay markasta Xasan Toob oo inuu dabaaliga duuba warka uu dhagay Xasan Toob iga naafa dhahay hoodiida shaqada ka mid tahay oo dhahay hooyadii oo soo wacay gabadhaada inay shaqaysto way diidan tahay oo dhahay hooyadii la soo hadashay aan warkeed waa qaatay wixii sameeyay dhawaasnay yani halahaasna inuu jara ahayd Catooshna raali oo ka exactly waa kana meesha u socona Catoosh inuu raali ka yahay afkeeda ayay ka cadeynaysaa wax walba sameey la dhahayna waan sameeyay bay tiri wax walba sameey la dhahay bal fiirsa hadalkaas wax walba nothing ma aha qubayso bas ma aha wax walba adile hadalkaas farta gili dhadhami in bahdilo marka dawaal dhahay oo biyaha gal dhahay woodiida asna biya inoo oo ismacneenay halahaas jaraan dhahay moona soo jirin oo ku soo dhaxday awlaadiisa oo ka arka insha Allah awlaad uu qaba gabdho uu qaba Xasan Toob gabdhana way la dhashteen ishii Ilaahay oo soo saar doona xayisiin walba asmeenayni wax ku shilin oo isii malahan waa cadow waa xaasid maxal dhahay
xaqaygoo cunay hooyadii waatana iska maskiina buushkaana iskaga nooshahay bishii waxaa ku shaqayn jiray $100 bis $100 aniga hataa ku shilay igama soo haraynin waalidka $80 siinaya $20 saar cuniga ka sacaano oo gadanay xasan toob dhibaato ayareen oo ii geystay ilaahiya ka weyn hooyadii waatana waxa ani maxaa dhahay wax walba waxa u sameynaa hooyadii darteeda soo fumi joog halkaas noogu hay marka wax walba hooyadii darteeda u sameynay waxaa jirta wax oo bilaaadinimada ama waalidka ama wax walba oo loo sameyn kara sharafta gabadha inay jirkeeda ama xaalada markaas iyada ah oo ilaahay ugu caroonaa inay waalidku u sameysana no ma jirto ma dhici karto waalidkaaga diinta ka bax waxaanan ahayn waa loo sameyn karaa allahna marka diintay soo hoosgelaysaa in xijaabkaaga tuurtid mara yar kuugu jirto kadibna markaas iyada aad kaamera lagaa qaado nin ajaaniba kaa qaado adoo biyaha ku jiro ninkaada ku ciyaarsiinayo ya waxyaalihii qarsada romantiga qarsada la yiri oo ilaahay nimcooyinkiisa ka midka ahaa oo sida goonida la idiin siiyey oo markaas iyada ah inaad labadiina bas idinku ekaatada publica soo dhigtay hooyada darteed uma sameynin hooyo macaan adigana fartiintan igahoo gabadhaadii aysan ku dambaajinin horna waa daawan jirtay fiidiyowadeeda hore ay soo bandhigi jirtay waa daawan jirtay waxyaalo badan baa gabadhaada ka qaldan waxba yaysan is-ooyinsiinin hooy waxaan kaa codsanayaa gabadhaada qabashay leedahay gabadhaada qabso kayga maxaa la dhahay ilmaheena waxay cunaan ee u helaan wax walba maanta adduunka qaali oo noqday anina waa awoodi waayay intaas ka badan haddana shaqadii maxaa la dhahay $100 ay hadda bahdilaaddas ay bilaabeen waa iskaga soo baxay oo waa ka soo dhamaaday shaqadiina marbiyaan dhahay sidaasaa aaga soo dhamaaday shaqada hooyadeena waa tanaanada saxaabta soo dhawaada waxaa idinka codsanayaa gabadhayda aflagaadada baraha bulshada laga wareejinayo masabo ka socoto inay wax raalli ka ahayn ay ahayn waxaa waaye ninaa ku danaysanay ninaa ku shaqaysanay waxay taqaana ma laha meelay ka bixaysa ma laha intaas waxay wax u samaynaysaa maa walaalaha ay maanta waxay aheedee wixii u baahan yihiin ad u awoodaa laakiin shaqadii waxay noqotay mid bahdilaad ah waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed oo aflagaadaynayso oo wax walba ku samaynayso oo dhaysa saan waa kan waa dhays aflagaadada inay iiga joojiyaan aan ka codsanayaa ya danta iyo daruufta liskuma naco gabadhayda waxaan iiga codsanayaa in maya ukaadi oo hintan waa boojo waana beerlaxawsi ma garateen waa beerlaxawsi dhab ah qof walbo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaduudkiisa jarana wuu ceebaynaa ilaahay intana loo cafinaa ka badan intaan galayna intana loo cafinaa maslaxa walaashay inta lagu cafiyus ilaahay noo wada cafiyus kuu cafiyey ayaa ka badan waxa maanta yarta aad ka oynaysid ma garat weli fursad ayaad haysataa dadka barkood sawirada laga hayo ama fiidiyooda laga hayo lagama hayo hadda weli qabasho ayaad leedahay dib oga laaba irsaaqad xalaala raadi inaad jirkaaga qaawisid ayaan waalidkay ku biilahayay ayaan owlaadanada waxay rabaan ku siinayay taas maya ma soconays ilaahay baa si fudud wax kugu siinaya ee ilaahay subxaana watacaala caabud ninkaagana ha ka laabto howlaha khatarta badan ee adiga mustaqbalkaaga dhibahaya uu kugu samaynayo inuu raalli ka yahayna afkaagaad ka caddaysa videogaadna ku xustay ku soco in ood soo dhawaysiin baa idinka codsanayaa xasan toob gabadhayda waa ku danaystay waa ku hormari muuqaal walba raalli ka aanas iiga duubi waxay raalli ka aanas iiga duubi ilaahay waxaan ka baryaa hortiisa in iska helo hortiisa iska helo ummaday asxaabay gabadhayda waa u jeedin danta iyo daruufta maanta haysato waa u jeedin hortiisa iska hela xasan toob gabadhayda muuqaal walba meel walba wadan walbaas iga gee hoteelo baraagiyaas iga geli ilaahay waxaan kaaga baryaa xasan toob hortiisa ka helo hooyo macaan ilintaada waa qaali waana runtii waana ka xumahay inay arrimahaas dhacaan laakiin lug baad ku leedahay sideed lagu leedahay hoteelka waad ogsaneed joog gabadhaydee waxan waa hilib bannaan yaalo ninkeedaan la socdo saygeedaan la socdo oo social media caanka ah war irsaaqada adigan xaaskaaga madaxeeda iyo jirkeeda aad ku raadini xayisiinta aad ku raadini war ilaahay baa meel kaa siinaya ninka la yidhaha tooshow ilaahay baa meel kale kaa siinaya adiga howlahaaga iska wado adigaaba ku filanba sodohdaa oo hooyadaa labaad leh oo qiimo weyn leh maanta inay baraha bulshada soo fadhiisato inuu xasan toosh xaaskaada kuu gacan dhaafay oo sawirro qaldan ka qaaday adigana raalli iyadan afkeeda ka sheegto oo xaaskaada ay sheegto runtii sharaf kuma aha dhammaanna qoyskii sharaf uma aha waxaa waane iga ah soomaaliye
idinkana la taliya oo la taliya videogan suu u gaarana maxaa la yidhahdaa share gareya oo gruubyada ku tuura suu maslaxa u gaaro maslaxa walaasheedii nac kuma qabo kumana aqaana gabar soomaaliyeed baad godobna igamaad gelin kadaalika ninkaas kale kadaalika xasan toob ma garateen laakiin qaabkaad irsaaqada ku raadiseen ayaa qaab qaldan ahayd runtii ma garatay war ani sidee xaaskayga usoo bandhigi karaa sidee macnaha in social media keena aan u ciyaarsiin karaa ninna uu ii dhigi karaa videogan waa gadmaa ka duub